bismillahirrahmanirrahiim kulanti wacan daawadayaal meel walbo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya oo xiliyadan oo kale aad ka barateen inaad ka daawataan midnimo online wararka qodobo dhowr ah ayaad ku daawad doontaan haddii aad nagu cusub tahay ha iloobin inaad subscribe saarto barteena YouTube-ka adigoo heli doona xilligan wixii ka dambeeya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya oo aan maalin walba soo daabacno haddii aan ku hormarno aabaha dhalay gabadha lagu magacaabo Ruqiya oo todobaadyadii ugu dambeeyay qabsatay baraha bulshada ayaa markii ugu horeysay ka hadlay in gabadhiisa isaga uu ku meheriyay wiilka lagu magacaabo Maxamed Cabdiraxmaan oo loo bixiyay lamaanaha qarniga waxa uu sheegay in gabadhiisa isaga uusan bixin waa kan isaga oo arrimahaasi ka hadlaya ninka oo ahay lagu nikaaxiyay walaayadii ama adiga diiba iswa haye oo adiga haye loo hadda meelkaas maxaan dhihi karaa gabadhaas ugu leeyahay haye uga gatay sida dadka qaar waxay leeyihiin gabadhaasi waxa dhiibay aabaheed waxa meeriyay aabaheed arintaasi waa beeninaysaa waxa leedahay gabarteeda mana la xididin qof kale ma xididin mana dhiibin sidaas miyaa leedahay dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay aroos qaran u dhigayso gabadhaada arintaas raalli ma ka tahay maxaad ugu baaqalee dowladda Soomaaliya arrinkaas marka gabadhaada afduub miyaa lagaaga haystaa dhibkaan dhacay waxay ku yimaadeen markay gabadha adeerkeed inuu dhibkan ku dhaco wiilka adeerkiis dhibkan ku dhacay arrintan sababa oo gabadha uu musaafaystay sababa awgeed haye ugu dhacay sababaas ma faafay ka xanuunsan markay Allah ka caafiyo adeer wax kale oo ku dirka jirta haye hal dowladda maxaa ka codsanaysaa Soomaaliya hadda waxa wada hadal kula yeeshay markii la hadlay maadada way ugu waxay ka soo haye okay ama ma samaamaha bayta waxa xiriiriya xaaskaaga aynan ahayn aad kala xigtaan waa been xaaskaygu kama jiraan inta maamada xiran warbaahinta isla dhaqaadayaan iyo xildhibaanada midkan isla wada qaadayaan ay leeyihiin gabadha iyo dhulka way kala tageen waa beentooda laxdii ku been waa arrin been abuura waa been abuur ugu dambeyn adigoo ka hadlayo xilligaaga iyo sunnigaaga iyo dadkaaga ugu dambeyn dowladda maxaa ku baaqaya jamac magaca dadka ku hadlaya jamac baaqaya maamada ka hor ayay xirnay sida la sheegay arrintaas wax maxaqiiq baa loo haya maamada dhintay bisa falka markuu dhacay kadib baa la xiray maamada waxay sheegayeen maamadii markuu falka dhacay laga xiray kahor in la xiray bisa marka hadalkaas meediyaha oo warbaahinta meediyahaas dhac hadal hayo waa beeninaysaa sama waxaad leedahay falka intuusan dhicin sitimaan ayay xirnayd sida la sheegay
marka 4 maalmood intaas aad xaqiijinaysa dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha dalka maxaad ka codsan lahayd in gabadha arrinteeda maadaama aysan walaac badan bulshada ay ku abuurtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maxaa ka codsan lahayd gabadha iyo badbaadiya gacantaadana ku soo celiya maamada xiranne ninkii dhintay arrintiisa in dhaqan laga dhaqmo oo laga fariisto qabiilaadka ay ka fariistaan diyaar reerka aad ka dhalata diyaar u kaasi wuxuu ahaa aabbaha dhalay Ruqiya Cabdullaahi oo arrimo dhowr ah ka hadlayay diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ee aan duuliyaha lahayn iyo ciidamada commandoska ee dalka Mareykanka oo kaashanaya kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa duqeyn ka fuliyay deegaano ka tirsan koonfurta magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya war qoraal ah oo ka soo baxay taliska Mareykanka ee Afrika ee lagu magacaabo Africom ayaa lagu sheegay in duqeynta si gaar ah loola beegsaday goob ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan Al-Shabaab isla markaana lagu dilay 3 ka tirsan saraakiisha sarsare ee Al-Shabaab howlgalka dhanka cirka ee ciidamadeena oo kaashanaya kuwa ay fuliyeen ayaa lagu dilay 3 ka tirsan Al-Shabaab howlgalka waxa uu ka dhacay deegaan qiyaas ahaan 40 kiiloomitir dhanka koonfur galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika taliska Afrika ee Mareykanka waxay sheegeen in baaritaano ay sameeyeen kadib ay ogaadeen inaanay jirin khasaare rayidka ka soo gaaray duqeyntaasi ka dhacday duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ugu dambeynteena madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar ayaa waxa uu ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed uu ka codsaday inuu cafiyay isaga iyo dadkii la soo shaqeeyay ee eedeysan hadalkan ayuu Cabdi Maxamuud Cumar waxa uu ka sheegay maxkamad ku taala magaalada Addis Ababa oo markii saddexaad maanta la hor keenay muddo 42 maalmood ah ayay xirnaayeen isaga iyo xubno ka tirsan maamulkiisii hore waxaana loo eestaa dacwad dhowr ah oo la xiriir gabood falladad rayida loo geystay horey waxa uu jiray in Cabdi Maxamuud Cumar iyo xubnaha la xiran ay ka cabanayeen inaanay qoraxda la tusin iyo in ehelkooda luqadda amxaariga ayna ku hadlin lagu qasbo in afka amxaariga ay ku hadlaan oo loo kala tarjumin xaakimka maxkamadda ayaa si adag uga hadlay dacwad oogayaasha ka socda xeer ilaalinta ma waxaad doonaysaan in ay sanad jiidato arrintan ayuu yiri xaakimka qaadaya dacwadda Cabdi Maxamuud Cumar madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa maxkamadda ka dalbaday in isaga iyo xubnaha la xiran laga gaarsiiyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya inuu cafis u fidiyo maadaama waqti cafis ah lagu gudo jiro madaxweynaha hore dowlad deegaanka ayaa sidoo kale hore cafis uga dalbaday dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya wararkii ugu dambeeyay arrimaha Soomaaliya waa naga inta aragtidaada ayaad qaybta hoose ku dhiiban kartaa la wadaag asxaabtaada haddii aad muuqaalka ka heshay haddii aad nagu cusub tahayna subscribe saar barteena YouTube-ka mahadsanid